weyn noo ah in magaalada muqdisho lagu qabto tartanka orodka gaaban muqdisho mini marathon oo aan aad iyo aad uga mahad celinayno wasaaradda dhalinyarada isboortiga gaar ahaan wasiir khadiija maxamed diiriye iyo bahda isboortiga dhammaantood sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan inta ka qayb qaadatay tartankan isaga ah inta qabanqaabadiisa ka qayb qaadatay iyo dhammaan inta bahda saxaafadda maanta oo dhan si live ah u tusaysay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan aad idinkaga mahad celinaynaa sida aad u sharafteen maanta oo kale maanta oo ah maalinta nabadda iyo isboortiga caalamiga iyo maalinta ciyaartooyga soomaaliyeed haddana in lagu aadiyo in tartan orod ah la qabto iyadoo nala joogo haliyey cabdi bile cabdi waxay noo samaynaysaa taariikh kale oo aad iyo aad u weyn sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaara uga mahad celiyo halkan caruur oo runtii orodkana qayb ka soo qaadatay oo ilaa iyo ka soo bilaabay halkii ka soo bilaabay kuna dhameeyey halkan oo runtii muujiyey sida ay u jecel yihiin isboortiga iyagana ma ilaabi doono aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa sidoo kale iyadana waxaa mahad leh hay-adaha amniga oo kaalin mugla ka qaatay maanta si nabada inuu noogu dhaco tartankan isaga ah munaasabadanna aan ugu dabaaldegno ugu dambayntii bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay nabaddu gacanteennay ku jirtaa horumarku gacanteennu ku jiraa haddaan sidaan oo kale isu kaashanno isweheshanno danta guud iyo wadajirkeenna iyo midnimada ka shaqayno wax walba waa noo hirgelayaan maanta qofkii islahaa muqdisho si nabada looguma samayn karo tartankan oo kale indhihiisa ku daawado maanta qof kastoo bulshada nabadda jecel horumarka jecel ha u noqoto maalin ay ku dhiiradaan in inta dhiman horumarka iyo nabadda aan gacanteenna ku samaysanno bulsho walbo iyada ayaa wax qabsata annaga waxaan rabnaa gobolka banaadir iyo shacabkaba shacab isku tashta caasimadda waa caasimaddii ummadda soomaaliyeed waa muraayaddii waxaan rabnaa inay u muuqato la tartanta caasimadaha kale adduunka gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan yariisow ahna duqa magaalada muqdisho oo aan leeyahay wasaaradda hindisaheeda uma suurtagaleen haddii aydan gacan nagu siin sidoo kale olombikada iyo xiriirada gaar ahaan xiriirka ciyaaraha fudud walaashay khadiijo waxaan leeyahay idinkuna guud ahaan iyo gaar ahaan waad mahadsantihiin waxaa maanta wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaa jooga dhammaan wasiiradii dowlad goboleedyada waxaa jooga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir si gaara dhammaanteen waxaa munaasabadan iyadana lagu soo aadiyey furkii bisha 3 aan qabanay oo laga soo hadlay mashruuc weyn oo markii ugu horeysay dalkoo dhan laga hirgelinayo oo ah mashruuca lagu horumarinayo isboortiga ayaa lagu horumarinayaa nabadda iyo horumarka iyo dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada mashruucaas wuxuu lagu qabanayaa oo laga fulinayaa dhammaan gobolka banaadir iyo dowlad goboleedyada dalka isagana maanta waa noo daafuran yahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa xusid mudan gacantii ay ka geysteen odayaasha isboortiga xaaji maxamed xuseen haadi iyo macallin muuse diyaarinta siyaasadda isboortiga iyo barnaamijkan oo ay gacan ka geysteen ayagana waan uga mahad celinayaa waxaa dhammaanteen ummadda soomaaliyeed dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xukuumadda nabad iyo nolol gobolka banaadir olombikada iyo xiriirada oo dhan dhammaan mujtamaca soomaaliyeed ayadana u ah sharaf iyo xushmad inuu nala joogo halyeygii qaranka soomaaliyeed cabdi bile cabdi oo aan orodkan ku maamuusnay naga aqbalay oggolaaday nalana jooga ma aha cabdi in aan tartanka munaasabadda keliya uu noo
nala soo bilaabo ama noo daafuro keliya ma aha waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed cabdi bilaa cabdi dad badan oo Soomaali ah ayaad maqasheen inay magaca Soomaaliyeed ku ordeen biladana caalamka ka keeneen waxay ku cayaareen dadkaasi ama orodyahanadaasi Soomaaliyeed magacyo dawlado kale ayay ku cayaareen cabdi bilaa cabdi waa qofka kaliya asagoo arday ah oo scholarship for student intuu helay waxna bartay qarankiisa Soomaaliyeed oo magaciisa wax ku bartayna bilad u soo hooyay waa kaligiis cabdi kaligiis waxaan rabnaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan inay wada noqdaan cabdi bilaa cabdi ninkii dadaala waxaan leeyahay cabdi bilaa waa gaari karaa waana dhaafi karaa waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka kadibna cabdi bilaa noo soo xiro laakiin intaas kor waxaan rabaa intii tartankan ka qayb gashay nambarada finaanadooda ku qoran aad ka ogaan kartaan waxay ka kala yimaadeen 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo olombikada iyo xiriirada gaar ahaan xiriirka ciyaaraha nambarada ay wada leeyihiin nambarada ay ku ordayeen oo haddii ay xiriir ka soo jeedaan iyo haddii degmo gobolka Banaadir ay ka soo jeedaanba wasaaraddu waxay u diyaarisay dhammaantood shahaado sharaf ay ku xusaan inay ka qayb galaan orodka gaaban ee Muqdisho mini marathon oo markii ugu horreeyay dalka ka dhaco hadeer intii qaran burburku nagu dhacay waxaan rabaa maalintaas waxaa soo sheegaya gudoomiyaha isboortiga gobolka iyo olombikada idin soo xiriirinaysa taas aan ku kulmi doonaa ku sheekaysan doonaa kuna wixii aad ku mutaysayteenna aan idinku abaalmarin doonaa haddii Allah awoodda leh ogolaado waa isku day fiican waa dhiirigelin fiican nabadda naad kulligeen ilaahay aan ka barino aan u wada indha taagno aan iska ogaano wixii intaan noo diidan inaan iska qabanno haddii Allah awoodda leh ogolaado waxaan abaalmarin siinaynaa dahab qalin iyo maar saddexdii ciyaartooy orodyahan ee ugu soo horeeyay waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha maalinta 6 Abriil 2018 oo ah maalin caalami ah oo maalinta horumarka isboortiga iyo nabadda isla markaasna ah maalinta ciyaartooyda Soomaaliyeed waxaana maanta magaalada Muqdisho suurta gashay in lagu qabto mini marathon Muqdisho mini marathon oo ah tartan orodka gaaban oo laga soo bilaabay kilometer 4 ilaa daljirka haddana taaganahay waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro 500 oo dhalinyaro oo ka kala socda degmooyinka iyo xiriirada kala duwan haba ugu badnaaday xiriirka ciyaaraha fudud si wanaagsan ayuu noogu soo dhamaaday intii ka qayb gashay iyo intii ku guuleysatana waxaa leenahay hambalyo waa maalin farxadeed waa maalin nabadeed aad iyo aad marka u jecelnahay horumarka isboortiga in sare loo qaado aad iyo aad bay farxad iigu tahay rajo weyn iigu tahay yidiilo weyn iigu tahay inaan maanta anigoo caasimaddii Soomaaliya Muqdisho dhowr iyo 30 sannadood ka maqnaa inaan maanta halkan dhexdeeda taaganahay daljirka dahsoon taaganahay marka ugu horeysa waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa fikirka wanaagsan iyo qabanqaabada wanaagsan iyo diyaar garowga wanaagsan ee ay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo wasiiradda Khadiija Diiriye iyo gobolka Banaadir gudoomiyaha injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo inta la shaqeynaysa ee gobolka iyo wasaaraddu iskaashiga ay sameeyeen ayna waxa weeye maanta event ka weyn ay ku soo bandhigeen oo geesinimo iyo dadaal iyo aragti fiican leh ay kaga turjumayaan dareenka iyo
shacabka iyo jiritaankeenna iyo ummaddeenna inay mar walba u taagan tahay inay wax kasta oo ka hor yimaada ay isu taagto oo aanay cidna uga cabsan cidna uga dambayn ay geesinimo tahay waxaan u mahadnaqayaa ciidamada amniga ee sidaa u taagan bahda saxaafadda ee sidaa xoog gala uga soo qayb gashay waa wax aad iyo aad u weyn iskaashigu halkaasuu ka muuqda ahmiyadda aad siiseen oo dhinac walba ka garab taagan tihiin maanta orodkan muqdisho mini marathon aan halka isugu nimi waxaan aad iyagana u xusayaa wasiiradii cayaaraha ee maamul goboleedyada oo iyaguna halkan iyaguna maanta iyaguna xaadir ku ah oo iyaguna qayb weyn ka qaadanayay eventkan macallimiintii waaweynay hadi iyo macallin muuse oo iyaguna qayb weyn iyaguna ka soo qaatay isku dubaridka hawlahan oo dhan waxaasoo dhammi waxay mudan yihiin runtii xus iyo in la siiyo mudnaanteeda waa wax aad iyo aad u weyn waxaan iyagana mudnaanta koowaad leh ciyaartoyda dhowrka boqola ee dadaalay ee saaka soo jarmaaday guryahoodii ka soo baxay ee halkaa dadaalkoodii inagu tusay oo cidna uga gaban waayey inay halkaas soo maraan jidkaas soo maraan qaar baa cagacaddaa qaar baa duruufo kale ka muuqdeen laakiin halkaa saaka waxay isu soo taageen jidkaa u soo ordeen u soo dhidideen waxa weeye waxay u taagan yihiin ummaddeenna iyo dareenkeedii iyo inaan wax hor istaagi karaa jirin waalidiintii saaka soo fasaxay ee ciyaalkooda u soo oggolaaday ee isi soo garab taagay ayaa iyaguna mahadnaq iyaguna mudan iyo macallimiintoodii iyo intii soo diyaar garaysay intaa haddaan ka gudbo runtii waxa weeye dalkan Soomaaliya waa dal taariikh dheer oo dahabiya lahaa oo dadka qaariminka aad moodid inay iska ilaaween ama dhagaha ka furaysteen ama dhalinyarada maanta joogta aanay aqoon waxa weeye meeshan aynu maanta taagannahay waa dal jirkii dahsoonaa waa dadkii naftooda iyo maalkooda iyo wax alla waxay hayeen u soo huray gobonnimadii ee u soo dhintay ee dagaallo u soo galay marka inaynu meesha taariikhda la taagannahay waxa weeye kuwii u soo dhintayna waa xusaynaa ilaahay ha u naxariisto waxa weeye Soomaaliyana way taagnaanaysaa way jiraysaa insha Allah waxaynu taagannahay baarlamaankii oo maanta inta yari ka taagan tahay aasaaskii Soomaaliya wuu soo noqonaya waxa soo dhamay insha Allah waxaynu qabnaa rajo Soomaalidu waa dad gadaal badan waxaynu u baahannahay midnimo inaynu gamcaha isqabsanno meel kastoo Soomaaliya joogto waxay u baahan tahay midnimo waxay u baahan tahay aragti dheer oo aan ahayn mid shakhsi iyo mid gobol ee ka weyn oo aragti ay Soomaali oo dhammi ma aha intanaynu Soomaaliya ku sheegi jirnay inta Soomaalida geeska Afrika joogto oo dhan ayaa hal ummad ah ummadaasi say geeska Afrika wax uga noqon lahayd say isu badbaadin lahayd say taariikhdeedii u badbaadin lahayd way awoodaa waana ka rajaynaynaa inay ku dhaqaaqdo ficilkeeda la timaado dadaalkeeda iyo garashadeeda la timaado ilaahayna la qabto wayna imanaysaa insha Allah waxaan sheegayaa magaaladan aynu joogno Muqdisho taariikh adag bay soo martay wax badan baa ka dhacay wax badan welina socda Muqdisho wax kastay soo martay iyo dareen kastay soo martay iyo dib kasta oo ka dhacay Soomaali meel kastay joogto iyo intayadii qurbaha joogtay waanu idin la qabnay dareenka waanu idin la qabnay hurdalaanta way idin la qabnay farxad iyo murugo wixii idin soo marayba waanu idin la qabnay insha Allah Muqdisho way ka baxaysaa murugo iyo taariikh xun Soomaaliya way ka baxaysaa insha Allah dadnimadeennii iyo dalkeennii iyo midnimadeennii iyo gobonnimadeennii iyo karaamadeennii way soo noqonaysaa kolley baa anigu tii aan calanka u siday
waxaan rajaynayaa inaan arko oo cimrigu igu simo marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa khayr iyo barakaan inoo rajaynayaa iminkana saasaan ku soo gebagabaynaynaa iyo dhallinyaradii iyagaa wax walba mudan dhallinyaradu iyagaa wax walba mudan dhallinyarada maanta halkaa joogta iyo inta kalaan la hadlaynaba laguma sii dayn karo wasaarad ciyaaro laguma sii dayn karo gobol waxaa loo baahan yahay ummadda oo dhan iyo dawladda oo dhan oo aanay hadal ahayna ka dhabayso oo ficil samaysa oo tiraahda dhallinyaradayadu waa mustaqbalkii maanta waa kii berrito waanu garab taagannahay wax walbana waanu u qabanaynaa sidaanu u badbaadin lahayn u barbaarin lahayn berrina ay wax u noqon lahaayeen oo dalkan noogala wareegi lahaayeen khayr baan idiin rajeeyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muqdisho mini marathon iyo bulsho weyntaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maanta farxad weyn noo ah in magaalada muqdisho lagu qabto tartanka orodka gaaban muqdisho mini marathon oo aan aad iyo aad uga mahad celinayno wasaaradda dhallinyarada isboortiga gaar ahaan wasiir khadiija maxamed diiriye iyo bahda isboortiga dhammaantood sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan inta ka qayb qaadatay tartankan isaga ah inta qabanqaabadiisa ka qayb qaadatay iyo dhammaan inta bahda saxaafadda maanta oo dhan si live ah u tusaysay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan aad idinkaga mahad celinaynaa sida aad u sharafteen maantaoo kale maanta oo ah maalinta nabadda iyo isboortiga caalamiga iyo maalinta ciyaartooyga soomaaliyeed haddana in lagu aadiyo in tartan orod ah la qabto iyadoo nala joogo haliyey cabdi bile cabdi waxay noo samaynaysaa taariikh kale oo aad iyo aad u weyn sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaara uga mahad celiya halkan carruur oo runtii orodkana qayb ka soo qaadatay oo ilaa iyo ka soo bilaabay halkii ka soo bilaabday kuna dhameeyey halkan oo runtii muujiyey sida ay u jecel yihiin isboortiga iyagana ma ilaabi doono aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa sidoo kale iyadana waxaa mahadle hay-adaha amniga oo kaalin mugla ka qaatay maanta si nabada inuu noogu dhaco tartankan isaga ah munaasabadanna aan ugu dabaaldegno ugu dambayntii bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay nabaddu gacanteennay ku jirtaa horumarku gacanteennu ku jiraa haddaan sidaan oo kale isu kaashanno isweheshanno danta guud iyo wadajirkeenna iyo midnimada ka shaqayno wax walba waa noo hirgelayaan maanta qofkii islahaa muqdisho si nabada looguma samayn karo tartankan oo kale indhihiisa ku daawado maanta qof kastoo bulshada nabadda jecel horumarka jecel ha u noqoto maalin ay ku dhiiradaan in inta dhiman horumarka iyo nabadda aan gacanteenna ku samaysanno bulsho walbo iyada ayaa wax qabsata annaga waxaan rabnaa gobolka banaadir iyo shacabkaba shacab isku tashta caasimadda waa caasimaddii ummadda soomaaliyeed waa muraayaddii waxaan rabnaa inay u muuqato la tartanta caasimadaha kale adduunka gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan yariisow ahna duqa magaalada muqdisho oo aan leeyahay wasaaradda hindisaheeda uma suurtagaleen haddii aydan gacan nagu siin sidoo kale olombikada iyo xiriirada gaar ahaan xiriirka ciyaaraha fudud walaashay khadiijo waxaan leeyahay idinkuna guud ahaan iyo gaar ahaan waad mahadsantihiin waxaa maanta wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga waxaa jooga dhammaan wasiiradii dowlad goboleedyada waxaa jooga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir si gaara dhammaanteen waxaa munaasabadan iyadana lagu soo aadiyey furkii bisha 3 aan qabannay oo laga soo hadlay mashruuc weyn oo markii ugu horreysay dalkoo dhan laga hirgelinaayo oo ah mashruuca lagu horumarinayo isboortiga ayaa lagu horumarinayaa nabadda iyo horumarka iyo dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada mashruucaas wuxuu lagu qabanayaa oo laga fulinayaa dhammaan gobolka banaadir iyo dowlad goboleedyada dalka
isagana maanta waa noo daafuran yahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. waxaa xusid mudan gacantii ay ka geysteen odayaasha isboortiga xaaji maxamed xuseen haadi iyo macallin muuse diyaarinta siyaasadda isboortiga iyo barnaamijkan oo ay gacan ka geysteen ayagana waan uga mahad celinayaa. waxaa dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed, dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, xukuumadda nabad iyo nolol gobolka Banaadir soo bilaabo ama noo daafuro kaliya maaha waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed cabdi bilaa cabdi dad badan oo Soomaali ah ayaad maqasheen inay magaca Soomaaliyeed ku ordeen biladana caalamka ka keeneen. waxay ku cayaareen dadkaasi ama orodyahanadaasi Soomaaliyeed magacyo dowlado kale ayay ku cayaareen. cabdi bilaa cabdi waa qofka kaliya asagoo arday ah oo scholarship bursary intuu helay waxna bartay qarankiisa Soomaaliyeed oo magaciisa wax ku bartayna bilad u soo hooyay. waa kaligiis cabdi kaligiis. waxaan rabnaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan inay wada noqdaan cabdi bilaa cabdi. ninkii dadaala waxaan leeyahay cabdi bilaa waa gaari karaa waana dhaafi karaa. waa mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka kadibna cabdi bilaa noo soo xiro. laakiin intaas ka hor waxaan rabaa intii tartankan ka qayb gashay nambarada finaanadooda ku qoran aad ka ogaan kartaan. waxay ka kala yimaadeen 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo olombikada iyo xiriirada gaar ahaan xiriirka cayaaraha fudud. nambaro ay wada leeyihiin, nambarada ay ku ordaayeen oo haddii ay xiriir ka soo jeedaan iyo haddii degmo gobolka Banaadir ay ka soo jeedaanba wasaaraddu waxay u diyaarisay dhammaantood shahaado sharaf ay ku xusaan inay ka qayb galaan orodka gaaban ee muqdisho mini marathon oo markii ugu horreeyay dalka ka dhaco haddeer intii qaran burburku nagu dhacay. waxaan rabaa maalintaas waxaa soo sheegaya gudoomiyaha isboortiga gobolka iyo olombikada idin soo xiriirinaysa. taasaan ku kulmi doonaa, ku sheekaysan doonaa, kuna wixii aad ku mutaysaysteenna aan idinku abaalmarin doonaa haddii Allah awoodda leh ogolaado. waa isku day fiican, waa dhiirigelin fiican. nabadda naad kulligeen ilaahay aan ka barinno, aan u wada indho taagno, aan iska ogaano wixii intaan noo diidan inaan iska qabanno haddii Allah awoodda leh ogolaado. waxaan abaalmarin siinaynaa dahab, qalin iyo maar 3 cayaartooy orodyahan ee ugu soo horeeyay. waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha maalinta 6 Abriil 2018 oo ah maalin caalami ah oo maalinta horumarka isboortiga iyo nabadda isla markaasna ah maalinta ciyaartooyda Soomaaliyeed. waxaana maanta magaalada Muqdisho suurta gashay in lagu qabto mini marathon Muqdisho mini marathon oo ah tartan orodka gaaban oo laga soo bilaabay kilomitir 4 ilaa daljirka haddanu taagannahay. waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro 500 oo dhalinyaro oo ka kala socda degmooyinka iyo xiriirada kala duwan. haba ugu badnaaday xiriirka ciyaaraha fudud. si wanaagsan ayuu noogu soo dhamaaday. intii ka qayb gashay iyo intii ku guuleysatana waxaa leenahay hambalyo. waa maalin farxadeed, waa maalin nabadeed. aad iyo aad marka u jecelnahay horumarka horumarka isboortiga in sare loo qaado. aad iyo aad bay farxad iigu tahay, rajo weyn iigu tahay, yidiilo weyn iigu tahay inaan maanta anigoo caasimaddii Soomaaliya Muqdisho dhowr iyo 30 sannadood ka maqnaa inaan maanta halkan dhexdeeda taaganahay, daljirka dahsoon taaganahay. marka ugu horeysa waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa fikirka wanaagsan iyo qabanqaabada wanaagsan iyo diyaargarowga wanaagsan ee ay wasaaradda cayaaraha iyo dhalinyarada
iyo wasiiradda khadiija diiriye iyo gobolka banaadir guddoomiyaha cabdiraxmaan injineer cabdiraxmaan yariisow iyo inta la shaqaynaysa ee gobolka iyo wasaaraddu iskaashiga ay sameeyeen ayna waxa weeye maanta eventkaa weyn ay ku soo bandhigeen oo geesinimo iyo dadaal iyo aragti fiican leh ay kaga turjumayaan dareenka iyo shacabka iyo jiritaankeenna iyo ummaddeennu inay mar walba u taagan tahay inay wax kasta oo ka hor yimaada ay isu taagto oo aanay cidna uga cabsan cidna uga dambayn ay geesinimo tahay waxaan u mahadnaqayaa ciidamada amniga ee sidaa u taagan bahda saxaafadda ee sidaa xooggale uga soo qayb gashay waa wax aad iyo aad u weyn iskaashigu halkaasuu ka muuqda ahmiyadda aad siiseen oo dhinac walba ka garab taagan tihiin maanta orodkan muqdisho mini marathon aan halka isugu nimi waxaan aad iyagana u xusayaa wasiiradii cayaaraha ee maamul goboleedyada oo iyaguna halkan iyaguna maanta iyaguna xaadir ku ah oo iyaguna qayb weyn ka qaadanayay eventkan macallimiintii waaweynay hadi iyo macallin muuse oo iyaguna qayb weyn iyaguna ka soo qaatay isku dubaridka hawlahan oo dhan waxaasoo dhammi waxay mudan yihiin runtii xus iyo in la siiyo mudnaanteeda waa wax aad iyo aad u weyn waxaan iyagana mudnaanta koowaad leh ciyaartoydaa dhowrka boqola ee dadaalay ee saaka soo jarmaaday guryahoodii ka soo baxay ee halkaa dadaalkoodii inagu tusay oo cidna uga gabban waayey inay halkaa soo maraan jidkaa soo maraan qaar baa cagacaddaa qaar baa duruufo kale ka muuqdeen laakiin halkaa saaka waxay isu soo taageen jidkaa u soo ordeen u soo dhidideen waxa weeye waxay u taagan yihiin ummaddeenna iyo dareenkeedii iyo inaan wax hor istaagi karaa jirin waalidiintii saaka soo fasaxay ee ciyaalkooda u soo oggolaaday ee isi soo garab taagay ayaa iyaguna mahadnaq iyaguna mudan iyo macallimiintoodii iyo intii soo diyaar garaysay intaa haddaan ka gudbo runtii waxa weeye dalkan soomaaliya waa dal taariikh dheer oo dahabiya lahaa oo dadka qaariminka aad moodid inayba iska ilaaween ama dhagaxa ka furaysteen ama dhallinyarada maanta joogta aanay oqoon waxa weeye meeshan aynu maanta taagannahay waa dal jirkii dahsoonaa waa dadkii naftooda iyo maalkooda iyo wax alla waxay hayeen u soo huray gobonnimadii ee u soo dhintay ee dagaallo u soo galay marka inaynu meeshaa taariikhda la taagannahay waxa weeye kuwii u soo dhintayna waa xusaynaa ilaahay ha u naxariisto waxa weeye soomaaliyana way taagnaanaysaa way jiraysaa insha allah waxaynu taagannahay baarlamaankii oo maanta intaa yari ka taagan tahay aasaaskii soomaaliya wuu soo noqonaya waxaasoo dhammi insha allah waxaynu qabnaa rajo soomaalidu waa dad dadaal badan waxaynu u baahannahay midnimo inaynu gamcaha isqabsanno meel kastoo soomaaliya joogto waxay u baahan tahay midnimo waxay u baahan tahay aragti dheer oo aan ahayn mid shakhsi iyo mid gobol ee ka weyn oo ah aragti ay soomaali oo dhammi ma aha intanaynu soomaaliya ku sheegi jirnay inta soomaalida geeska afrika joogto oo dhan ayaa hal ummad ah ummaddaasi say geeska afrika wax uga noqon lahayd say isu badbaadin lahayd say taariikhdeedii u badbaadin lahayd way awooddaa waana ka rajaynaynaa inay ku dhaqaaqdo ficilkeeda la timaaddo dadaalkeeda iyo garashadeeda la timaaddo ilaahaynayna la qabto wayna imanaysaa insha allah waxaan sheegayaa magaaladan aynu joogno muqdisho taariikh adag bay soo martay wax badan baa ka dhacay wax badan welina socda muqdisho wax kastay soo martay iyo dareen kastay soo martay iyo dhib kastaoo ka dhacay
soomaaliya meel kastay joogto iyo intayadii qurbaha joogtay waannu idinla qabnay dareenka waannu idinla qabnay hurdala'aanta waa idinla qabnay farxad iyo murugo wixii idin soo marayba waannu idinla qabnay insha allah muqdisho way ka baxaysaa murugo iyo taariikh xun soomaaliya way ka baxaysaa insha allah dadnimadeennii iyo dalkeennii iyo midnimadeennii iyo gobonnimadeennii iyo karaamadeennii way soo noqonaysaa kollayba anigu tii aan calanka u siday waxaan rajaynayaa inaan arko oo cimrigu igu simo marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa khayr iyo barakaan inoo rajaynayaa iminkana saasaan ku soo gebagabaynaynaa iyo dhallinyaradii iyagaa wax walba mudan dhallinyaradu iyagaa wax walba mudan dhallinyarada maanta halkaa joogta iyo inta kalaan la hadlaynaba laguma sii dayn karo wasaarad ciyaaro laguma sii dayn karo gobol waxaa loo baahan yahay ummadda oo dhan iyo dawladda oo dhan oo aanay hadal ahayna ka dhabayso oo ficil samaysa oo tidhaahda dhallinyaradayadu waa mustaqbalkii maanta waa kii berrito waannu garab taagannahay wax walbana waannu u qabanaynaa sidaannu u badbaadin lahayn u barbaarin lahayn berrina ay wax u noqon lahaayeen oo dalkan noogala wareegi lahaayeen khayr baan idiin rajeeyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muqdisho mini marathon iyo bulsho weyntaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maanta farxad weyn noo ah in magaalada muqdisho lagu qabto tartanka orodka gaaban muqdisho mini marathon oo aan aad iyo aad uga mahad celinayno wasaaradda dhallinyarada isboortiga gaar ahaan wasiir khadiija maxamed diiriye iyo bahda isboortiga dhammaantood sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan